dynamic island sidee ay ugu isticmaali kartaa mobilkaaga androidka. Dynamic island wuxuu ku shaqeeyaa inuu kuu soo bixiyo notificationada qaab qurux badan oo markaa shaashada kaaga soo dhex muujiyo. Marka kaliya waxaa haystay iPhone-ka, laakiin hadda waxaad ku heli kartaa androidka adigoo isticmaalaya marka application-ka kuu sheegay doono. haddaba intaynan muuqaalkeena u gudagelin waxaan kaa codsan lahaa haddii aad ku cusubtay channelka inaad subscribe saartid. application-ka marka wuxuu qaban doonaa inuu qaab noo soo muujiyo notification-kaasi dhankan noo soo dhigo weliba qaab ka qurux badan oo sida iPhone-ka oo kale iPhone 14-ka uu shaqeeyo. Saad application-ka usoo degsid waxaad soo galaysaa marka Play Store, kadibna waxaad ku qoraysaa Dynamic Island. kadibna hadda anigu ii degsan yahay application-ka, laakiin adiga marka install ayuu ku leeyahay soo degso. marka application-ka markaad furtid qaabkan ayuu kugu soo baxayaa. wuxuu ku weydiinaa marka inaad next dhahdid waxa uu ku soo saarayo, kadibna wuxuu ku soo saari doonaa marka saddexdan qayb oo mid walba muhiimadeeda leeyahay. marka application-ka inuu ku shaqeeyana ay muhiim u tahay. marka midda koowaad waxaa kasoo dooranaysa marka application kasoo dooray ayuu ku leeyahay. application-ka ayaa soo dooranaysaa. application badan ayuu kusoo dhigaa marka mobilka ku jira, kaliya waad raadinaysaa marka asaga meesha uu ku jiro. hadda waa kana anaga Dynamic Spot on ayaan dhahnay, kadib waa kasoo laabanaynaa. sidoo kale qeybahan kale u ogolo. sidoo kale qaybta ugu dambeyso wuxuuna geyn doonaa API-ga ama accessibility meesha laga maamulo mobilka applicationada muhiimka u ah. marka Dynamic Spot-ka ayaan ku dhufanaynaa, kadibna on ayaan dhahaynaa. allow ayaan soo dhahnay, hadda waan usoo ogolaanay shuruudihii oo nagu xiray, kadibna waan iska dhan ayaan dhihi doonaa. haddaynu isla tijaabino marka application-ka qaabka notification-kiisa kusoo bixinayo asaga ayaa marka tijaab ahaan kugu dhigay meesha. dhag ayaan siinay, qaabkan ayuu nagu soo baxaya marka oo ah qaabkii iPhone-ka oo kale. marka reer iPhone-ka waa iska bareejayn kartaa marka haddii uu jiro qof kugu faanayay. hadda ma jiro marka qof kugu faanayo, adigana waa haystaa. marka si aad usoo habaystid ugu horeyn waxaad ku dhufanaysaa marka behavior meesha ay ku qoran tahay, kadibna waxaan u ogolaanaynaa inuu laba notification hal mar noo soo muujin karo. sidoo kale haddii aad rabtid inuu kaa qaado, haddii aad rabtid marka inuu aad dhanka u wadid, tusaale haddaan riixno oo marka notification-ka aragno inaanu ka qaadno meesha kama qaadsanayo. marka si aad ugu qaadid waxaad ku imaanaysaa qaybta hoos ayaad u wadaysaa ilaa aad ka imaanaysa meesha ay ku qoran tahay sweep to clear. meeshaas ayaa on dhahnaysaa. tusaale hadda dayna fiirno mar labaad oo aan riixno, kadibna waan wadi karnaa meesha aan rabno. drag left, drag to right waan dhihi karnaa marka, ama dhanka rabta ay u jeedi kartaa. sidoo kale waxaad imaanaysaa oo kale muhiim ah position, yani meesha uu ku yaalo. tusaale hadda aniga waxaan isticmaalayaa position-ka qeybahan afartan qeyb ayuu ku kalsaaraa. marka aniga tusaalahaan inta ayaad ka maamuli kartaa filartan oo kalena waad ka celin kartaa. marka labadan filartan ku darid waay, tan ka jaarid waa magarata. marka tan ayaad isticmaalaysaa ama gacantaada ayaa meesha taabsiinaysaa, saas oo kale ayaad ku maamulaysaa. hadda waxaan kordhinaya marka dhererkiisa, yani inuu dheeraad xogo ayaan ka dhigayaa. midan ayaan maamulaya ilaa iyo waxaan ka dhigayaa 30 pixel. marka 30 pixel oo kale ayaan ku dhigaynaa. marka 30 pixel ayaan isaga dhafayaa. sidoo kale qaybtan haddaynu ku dhufano position ay qoran tahay inaad dhanka bidix uu kaaga soo muuqdo mobilka ama dhanka dhexda uu kaaga soo muuqdo. marka right ma lahan. haddaynu ka laabano marka oo aan tijaabino hadda, marka qaabkaas ayuu kugu soo baxayaa. intaas ayuu nagu ogyahay muuqaalkeena maanta. ma jiro qof maanta kugu faan doono oo reer iPhone ah inuu haysto Dynamic Island wax la dhaho oo notifications kugu soo baxayso. haddaba haddii aad muuqaalkan ka heshay waxaa kaa codsan lahaa inaad subscribe noo saartid haddii aad ku cusubtay channelkeena waaye. haddii kalena kaliya like ku dhaaf muuqaalka.